السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن لي ومروين kusoo dhawaada koorsadani Advanced QuickBooks Online Course. Ma tahay maamule u baahan in ganacsigiisa ama dhaqdhaqaaqa xisaabaadkiisa uu iska xaqiijiyo, ama ma tahay qof ganacsade ah oo weli isticmaalaya bookkeeping, buug iyo qalin ee warqadihiisa iyo deemihiisa ay ku qoran yihiin, oo marka la gaaro sanadka xisaab xirka goobtaasi ganacsi halkaasi ay uga lumaan $10 oo lacagtiisa ah, sababtoo ah marka uu waayo kadib buuggii lacagtaasi ay u qornayd ama uu ka lumo ama uu ka gubto. Ama ma tahay arday danaynaya oo soo bartay qeybaha iyo xisaabaadka raba in laga caawiyo ama laga kabo, ama ma tahay qof soo bartay barnaamijka xisaabaadka iyo waxyaabo la midka ah oo u baahan inuu ku shaqo tago isticmaalka barnaamijyada xisaabaadka loo isticmaalo oo ay ugu caansan waqtigan la joogo. Haddaba haddii ay tahay jawaabtaadu haa, waxaan ku haynaa koorsadaasi oo lagu magacaabo Advanced QuickBooks Online Course. Koorsadaas insha Allah taala waxaad ku baran doontaa sida loo set up gareeyo company dhameystiran bilow iyo la dhamaad aad ku baran doontaa. Marka waxyaabaha aad ku baran doonto waxaa kamid ah ugu horeeya accounting terminology-ga la xiriira xisaabaadka ayaa kamid ah. Marka si aad u fahanto marka hore dhankaasi waxyaabaha la xiriira xisaabaadka iyo sida ay u shaqeynayaan ayaan kugu bari doonaa. Intaa kadib waxaad ku baran doontaa dashboardka QuickBooks sida loo optimize gareeyo, sida loo sameeyo, sida adigu aad uga dhigan lahayd sidii adigu aad rabto ayaad ku baran doontaa insha Allah taala. Waxaad kale ku baran doontaa sida loola tacaamulo customerska haddii ay yihiin, haddii aad u jarayso invoice aad u sameynayso, haddii aad u sameynayso quotation, haddii aad cash wax kaga iibinayso, haddii ay alaab aad ka iibisay ay ku soo celiyaan cilad iyo ceeb ay ku timaado sida loola tacaamulo. Dhammaan qeybahaasi ayaad ku baran doontaa. Sidoo kale qeybta iyo supplierka ayaan ku baran doonaa sida lamid ah sida aad uga soo adeeganayso customerskaaga, haddii aad rabto badeecad oo marka oo cash aad ku soo iibsanayso inaad ka soo iibsan karto, haddii aad amaah aad kaga soo iibsan karto, sidoo kale haddii lacagta bar aad bixinayso barna deyn ay kugu tahay sida loola tacaamulo. Dhammaan qodobadaasi ayaad ku baran doontaa iyo qodobo la mid ah. Kaliya qodobadaasi kuma baran doonto, waxaad baran doontaa reportska ayaad baran doontaa, sidoo kale noocyadooda kala duwan, haddii ay tahay balance sheetka, haddii uu yahay profit and loss-ka, haddii uu yahay sales performance-ga, haddii uu yahay customer performance-ga. Dhammaan qodobadaasi ayaad ku baran doontaa. inta oo kaliya kuma baran doontid insha Allah taala koorsadaasi waxaad ku baran doontaa koorso dhameystiran ayaad ku baran doontaa bilow ilaa iyo dhamaada sida loo isticmaalo QuickBooks qaybtiisa online-ka weliba adigoon marka aan u baahnayn goobtaada shaqo inaad joogto iyo inaad ka maqan tahay aad u baahnayn, kaliya aad u baahan tahay inaad haysato internet iyo laptop inaad haysato ama computer. Haddaba haddii aad danaynayso marka barashada koorsadani Advanced QuickBooks Online Course-ga, waxaan ku leeyahay kusoo dhow waa koorsadaadii. Haddii aad soo gaartay ilaa iyo xeerkan aad la socoto videogani ama introgani aad daawanaysana, waxaan ku leeyahay waxaad tahay qofkii aan u soo diyaariyay intaasi juhdi iyo waqti aan u soo geliyay ayaa tahay adiguna sidoo kale. Marka waxaan ku rajaynayaa inaad ka faa'iideysato oo aad noqoto qofka ugu horeeya ka faa'iideysta barnaamijkani ama koorsadani qiimaha badan.